nasiib darro markii uu ra'iisul wasaaraha jooga dalka yimid laga bilaabo ma dhicintii waxay bilaabeen markiiba isballaaris iyo in ay dhul raadis ay bilaabeen Soomaalida ku soo foofeen aqoontay u lahaayeen darteed waxay bilaabeen Soomaalida inay kala qaybiyaan oo yiraahdaan kan annaga reer baan isla nahay kana waa bari hebel kana waa lafti naga kana waa sheeko kana waxa la garanay baraayba lagu bilaabeen mashaakil bay lagu bilaabeen waxa ka sii daran kaliya ma aha dal balaarsigu inay hadda soo bilaabeen Soomaalida deegaanka Soomaalida واجنا لكن ما جرين سعد سيدان oo kale badanaan qaybtaan ka rabaa hargeysa magac kale ileedo anaa lahaan jiray garbaharey anaa lahaan jiray buur hakaba anaa lahaan jiray anaa ma jirin waxaas nimanka hadda waxay bilaabeen been dhahan waxaan Soomaalidu cirka ka soo degtay anaga dhahan jiray dhulkan sideedaba Soomaalidu meel ka timid lama yaqaan anaga dhulkan lahayn anaga dhahan jirnay sheekadaas bilaabeen oromada marka waxaan leenahay war idinka Soomaalida isku carinina annaga Soomaali baan la dhahaa Soomaalida waxa waaye doodaan wuxuu yiri dhulka adag wax hees lagu dhaqriyo daanis gabadhe waxa dhulku sidiisaba dhul hees lagu qaadan karo hanjabaadna lagu qaadan karo baqbaq iyo meelaha in laga hadalana lagu qaadan karo diig iyo xinjir baa ka soo horay taas Soomaalidu way taqaan waxaan leenahay Soomaalida waxaan leenahay nimankaas nadaayay Ethiopia